kolonyadan ka tirsan ciidanka dawladda oo marayay nawaaxiga bar kontaroolka muqiga ee dawladka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa go'dhow la eegtay qaraxyo iyo weerar toos ah waxaan dhawaqa qaraxyada iyo jugta culus ee rasaasta la isdhaafsaday si weyn looga maqlay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana daqiiqado kooban hakad galay gabi ahaanba dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo ganacsiga degmada Afgooye warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay weerarka hase yeeshee taliyaha saldhigga booliska degmada Afgooye oo idaacadda kulmiye la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay iska caabiyeen al-shabaabkii soo weeraray inuu bar kontarool weerar lagu soo qaaday ciidamada xoogga Soomaaliyeed jidka ay marayaan oo wadada isku xirtay Afgooye ay jidkooda u sameeyeen aad iyo aad aan iskaga baartay loo jibiyay waana lagu guuleystay alxamdulillah rabbil caalamiin wadada isku xirtay Afgooye jidka ay u galeen dhabarkana laga jibiyay Abdulwali Ali online shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose.